Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bal sawirada wada diintaada been seexataa soo toostay adduunyadu isbedeshay, guryo isbedelay iyo dadkii horumaray, sidoo kale magaaladii aad ku noolayd oo isbedeshay gebi ahaanba. Kadibna aad ogaatay inaad huruday wax ka badan 300 sano. Waxaan sheegayaa maaha waxaan samaystay, balse waa qiso dhab ah. Waxaana inooga warramay Ilaahay, isagoo inooga warramay quraankiisa sharafta leh. Waana qisada Asxaabul Kahfi. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga warrami doonaa qisadaas oo dhammaystiran. Haddaba ku soo dhawaada asxaabay muuqaalkeena maanta. Waqtigii hore waxay ahaayeen dadka intooda badan qaar caabudo asnaamta, waxaanay asnaamta u karaameyn jireen qaab aad u weyn. Ciddii ka soo horjeesatana way ciqaabi jireen oo way dili jireen. Markaa dadka inta Ilaahay si dhab u caabudaa way yaraayeen. Dadka inta badanna waxay caabudi jireen asnaamta. Boqoradii xilligaa talin jirayna waxay ahaayeen qaar dadka ku qasbay inay caabudaan asnaamta. Laakiin waxaa jirtay koox dhalinyaro ahayd oo tiradooda lagu qiyaasay inay ahaayeen 7 qof, marmarka qaarna 3 qof, marmarka qaarna 5 qof. Mana jirto cod si dhab ah u garanaysa tiradooda, siduu Ilaahay noogu sheegay Qur'aanka. Kooxdan dhalinyarada ah waxay ahaayeen mar walba qaar ka soo horjeeda sanam caabudidda. Sidaa darteed kooxdani waxay isku dayeen inay dadka waaniyaan oo ay ka waaniyaan kufriga iyo gaalnimada. Kadib dhalinyaradan wuxuu arrinkoodii gaadhay boqorkii xukumi jiray meesha, waxayna go'aansadeen inay iskaga tagaan tuulada, sababtoo ah boqorkii tuulada ayaa raadinaya oo hadduu qabto dilaya. Waxay ka haajireen guryahoodii iyo ehelkoodii, waxayna ka baxeen tuulada iyagoo la socda ay. Bilowgii waxay go'aansadeen inay galaan meel god ah oo ay Ilaahay ku caabudaan iyagoon cidna dhibayn. Waxayna isku raaceen inay galaan godkii oo ay Ilaahay ku caabudaan. Sidoo kale ayaga ay wateen waxay fadhiisiyeen albaabka hore ee godka si uga difaaco haddii ay xayawaanno soo weeraraan. Dhalinyaradan waxay ahaayeen maalmo kadib qaar dir shaqsi ka mid ah si uga soo iibiyo cunto magaalada, kadibna ugu soo laabto godka. Waxayna u xidhi jireen dhar waaweyn oo googo'an si ayna cidna u garan. Sidaas ay Ilaahay uga caabudi jireen godka ay ku jireen dhalinyaradaasi. Waxayna ahaayeen boqorka iyo gaaladiiba qaar baadi goobay oo meel walba ka raadinaya, ilaa ay akhriyeen kooxdii dhalinyarada ahayd aayadan: Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Rabbanaa aatinaa min ladunka raxmatan wahayyi' lanaa min amrinaa rashadaa. Intaa dabadeed markii ay ku ducaysteen dhalinyaradii aayadan way seexdeen. Halkaana waxaa ka bilaabmay mucjisadii. Kooxdii dhalinyarada ahayd waxay seexdeen hurdo aan caadi ahayn, waxayna soo tooseen iyagoo aad u gaajaysan. Kadib waxay go'aansadeen inay suuqa magaalada u diraan nin iyaga ka mid ah si uga soo iibiyo cunto magaalada ay cunaan. Wuxuuna qaaday kii ay direen 2 dirham uuna baxay, waxuuna tegay magaaladii. Markii uu gaadhay magaaladii wuxuu la kulmay adduunkii dhannaa oo isbedelay. Magaaladii oo isbedeshay, guryo isbedelay iyo dadkii oo isbedelay gebi ahaanba. Wuxuuna arkay ninkii soo baxay rag iibinaya rooti. Wuuna u tegay waxaana ku yidhi wax iga iibiya, isagoo u dhiibay 2kii dirham ee uu watay. Balse ninkii wax iibinayay wuu la yaabay ninkan, sababtoo ah adduunkii u horumaray, lacagtanna waa laga baxay. Waxauna ninkii weydiiyey xaggeed ka keentay lacagtan, wuxuuna uga warramay gebi ahaanba qisadoodii oo dhammaystiran. Wuxuu go'aansaday ninkii rootiga iibinayay inuu ninkan u geeyo boqorka. Markii uu ninkii arkay boqorkii wuu la yaabay, sababtoo ah ninkan kuma ogeyn boqorka. Wuxuuna ogaaday inuu boqorkii daalimka ah dhintay muddo laga joogo 300 sano. Markii ay dadkii maqleen qisadoodii waxay ku booqdeen godkii wayna la yaabeen. Asxaabul Kahfi markay ogaadeen xaqiiqada may ahayn qaar mujtamacan cusub la noolaan kara. Asxaabul Kahfi waqti yar ayay sii noolaayeen, kadibna naftii ayaa laga qaaday.